taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa maanta la sheegay in uu kasoo jawaabay dalabkii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo shalay 48 saacadood u qabtay in warbixin dhammaystiran looga keeno dilkii Ikraam Tahliil oo ahayd gabar dhalinyaro ah oo u shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda qaranka. qoraal uu Fahad Yaasiin u diray ra'iisul wasaare Rooble oo nuqul kamida uu soo gaaray Israac TV ayuu ku sheegay in uu doonayo in warbixinta uu dalbaday ra'iisul wasaare Rooble uu ka horjeediyo shir ay goobjoog ka yihiin golaha amniga qaranka oo wada dhan. golahan waxaa xubno ka ah madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, taliyayaasha ciidamada, wasiirada amniga iyo gaashaandhigga iyo madaxda maamul goboleedyada. Fahad ayaa qoraalkiisa ku yiri annagoo fulinayna amarkaaga maankana ku hayna xasaasiyadda kiiska sarkaal Ikraam Tahliil oo noqday mid heer qaran, gudanaynana waajibka naga saaran amniga qaranka, fahansanna in dhacdadan ay si toosa iyo si dadbanba u qusayso xafiisyo iyo hay'ado kala duwan oo dowladda ka wada tirsan, xaqna u leh in ay ogaadaan xaqiiqada dhacdadan iyo xogta ay xambaarsan tahay. warbixintan aad naga dalbatay ayaan waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa in aan warbixintan ka horjeedino golaha amniga qaranka oo wada dhan oo ay xubno ka yihiin hay'adaha iyo xafiisyada ay arrintan qusayso. Fahad Yaasiin ayaa qoraalkiisa sii raaciyay oo yiri hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku waxa ay codsi rasmi ah u diraysaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga in uu fursad noo siiyo qabsoomid shirka golaha amniga qaranka maadaama uu yahay gudoomiyaha golaha amniga qaranka iyo sidoo kale taliyaha ciidamada qalabka sida. Fahad ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in macluumaadka la xiriira kiiska Ikraam Tahliil uu la wadaago golahan, halkaasina markaa lagu gaaro go'aano. dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaarkood sheegay in tallaabadan uu Fahad qaaday ay u muuqato mid markaa uu ku doonayo in go'aanka laga gaarayo kiiska Ikraam aanu ku koobnaan ra'iisul wasaare Rooble oo kaliya. Rooble ayaa haatan waxaa laga filayaa in uu isna jawaab ka bixiyo arrintaasi.